Asalaamu calaykum walaalayaal ku soo dhowaada Garanuu Podcast maanta oo Jumce ah taariikhduna tahay 26 bisha 12 ee sanadkan dhammaadka ah 2025. Haddaba barnaamijkeenan cusub waxaan ku ibo furaynaa sheeko gaaban oo uu qoray qoraaga weyn ee Soomaaliyeed ee Ibraahim Yuusuf Hawd. Sheekadan waxa uu qoraagu ugu wanqalay Aafo. Meel jawi degan leh fadhiisa oo soo qaado bunka iyo isnaaga aad ugu jeceshay, waxaan rajaynayaa inaad diyaar tahay, haddaba ila bilow sheeko faneedaan oo dhegayso. Sharku nolosha ayuu ku gedfan yahay oo sina loogama lug baxo, waxaana la malayn karaa in uu qudheeda ka mid yahay ee aanu ahayn wax debedda kaga imanaya. Qoom walba iyo qof walba waxaa jira wax lagu ibtileeyey. Ummad baa khamri iyo maandooriye la ildaran. Mid kale boqortooyo macangeg ah ayaa lagu saliday. Mid kale fakhri iyo diin istugsaday ayaa fadhi u diiday. Ummad kalena cudurka AIDS-ka ayaa looga baqayaa in uu dabargooyo. Innagana waxaa la inagu aafeeyey masiibo intaba ka daran. Raage waa Soomaali 30 jir ah oo uu caafimaadkiisu taam yahay. Sida ay hooyadii u sheegtay, magaciisu wuxuu isugu qoofalan yahay 2 ujeedo. Mar wuxuu duco, saadaal iyo rajo u yahay cimri dherer. Mar kalena wuxuu xasuus u yahay sidii ay fooshiisa ugu raagtay. Wuxuu ku dhashay kuna barbaaray magaalo, wuxuuna curad u yahay qoys nolol ahaan iska ladan. Dugsi sare ayuu ka baxay, aqoontiisuna ma xuma, wuxuuna si wanaagsan u yaqaan afafka Soomaaliga, Carabiga iyo Ingiriisida, kuwaas oo uu wax badan ku akhriyo. Intaas waxaa u dheer aqoon fiican oo uu diinta u leh yahay. Hay'ad magac samafal dalka ku joogta, laakiin aan cidina runteeda ogayn ayuu tarjumaan u yahay. Soon iyo salaadi kama tagaan, macsidana nooc ay ahaataba aad ayuu uga dhowrsadaa. Wax balwad ah oo aan shaah ahayn ma leh, kubadda cagta ayuuna galab walba cayaaraa. Waxaa loo arkaa nin dhaqan iyo anshax wanaagsan. Dabci ahaan waa nin naxariis badan, taas oo ah sifo dadka Soomaalida siiba ragga ku yar. Waxaa dhacday maalin uu 22 jir ahaa in hooyadii ilig aad u xanuunay dabadeed u ooyey. Maalin kale oo walaashii la gudayey markii ay xanuun la qaylisay, isaguna aad ayuu u ooyey. Maalin saddexaad oo ay aabbihii iyo niman kale toorayo isula baxeen, aabbihii ayuu qabtay ee uma hiilin. Barbaarta ay isku filka yihiin dhacdooyinkaas waa ay ku xifaaleeyaan, waayo qofkii aan qalbigiisu dhabar yaxaas ka qalafsanayn fulay iyo qof jilicsan ayaa la mooda. Raage galab isaga oo siirada Nebi Maxamed s.a.w. kitaab ka akhrisanaya ayuu aad ugu qiirooday dabci wanaagga rasuulka, wuxuuna qirtay in ay tahay nolol ku dayasho leh. Maalintaas kadib wuxuu tijaabiyey bal in uu iska dhigi karo qof wanaagsan oo intii suurtogal ah eeb yar. Dad ay diimaha iyo taariikhdu ammaaneen ayuu u fiirsaday, wuxuuna ogaaday in ay ka sinaayeen si